halkani waa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waana magaalo qadiimi ah waxaana ku nool kumaan kun oo dad ah magaalada Kismaayo waxa ay ka kooban tahay 5 xaafadood oo waaweyn haatan dhinaca aan kaamirada ku hayo waa qorrax u dhaca magaalada Kismaayo waana u jeedaan qorraxda oo sii gaabanaysa isla markaasina godka sii galaysa dhinaca magaalada kaga beegan tahayna waxa loo yaqaanaa xaafada Kuubo ama Badar waana dhinaca galbeed ee magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadaha ugu dambeeyo waana isla xaafada Farjano halkan aan kaamirada sida tooska ugu hayo waa xaafada Farjano siimankaas aad u jeedaan waxa iska leh shirkado kala duwan oo isugu jira Hormuud iyo waliba Nation dhinacaas kale aad u jeedaan waa dhinaca xaafadaha loo yaqaan Daabyambo oo ah isla Farjano waana dhinaca xeebta magaalada Kismaayo dadkaasi dhaqdhaqaaqaya aad u jeedaan waa dhalinyaro ku ciyaaraysa kubadda cagta garooma yar ah oo ku yaala xaafada Daabyambo baddaasi aad u jeedaan waa badda Qoryooley oo iyadu qayb ka soo gasha magaalada Kismaayo aan idin raacay ma aha oo kaliya xeebta Qoryooley ee waa xeebta Liido iyo waliba xeebta Qoryooley xeebta Liido wata xeebta Qoryooleyna waa tan dhinaca bidix iga qabanaysa magaalada Kismaayo markii loo fiiriyo sanadihii hore waliba sanadkan aynu ku guda jirnay 2016 waxa u dhaxeeya farqi weyn taasoo ah isbedel dhanka bilicda magaalada ah halkaas aad u jeedaan waa garoon yar oo ku yaala xaafada Farjano gaar ahaan weexda Siinay waxaana loo yaqaanaa garoonka Cabdiriikow waxaana ku ciyaara caruurta ama dhalinyarada xaafadaasi degan isla markaasina ka agdhow garoonka Cabdiriikow garoonka aan idin tusay waa halkaas wareegsan ee caruurta badan ay ku jiraan wadadan aad u jeedaan ay gawaarida marayaan waa wadada jidcadka kana soo leexata laamiga weyn ee garaac caymiska ama madaxtooyada waa wadada weyn ee isku xirta ama ah halbowlaha magaalada iskuna xirta airportka weyn ilaa iyo madaxtooyada ama waliba jaamacadda magaalada Kismaayo wadadan waxay ka soo leexataa sidaan idin sheegay laamigaas waxayna gashaa xaafada Siinay waa wada goordhow lagu shubay carrakaabo asalkeedu hore waxa ay ahayd bacaad qorraxdu waa ay sii gaabanaysaa saacada Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 12:00 galabnimo oo gawa waxaana soo dhow xilligii aadaanka salaada maqrib